السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونعكسن داوديال ملبا دنيا كجوكتان waxaad naga daawanaysaan marka hore xidigaha banaadir media fadlan asxaabay hadda YouTube channelka aad ku cusub tihiin subscribe saarta gambalka furta si aad noqotiin daawadayaasha ugu horeeya wixii like iyo comment share waa xaqiina aniga waxay noo tahay dhiirigelin weyn horta har iyo habeen waxaan u dadaalayno video u soo gelinayno ma ahan takaliya danteena shakhsiyaanteena waxay tahay bulshada inay helaan wax wanaagsan ay daawan karaan horta maanta barnaamijkan u soo fadhiistay uu ka duwan yahay barnaamijyadii hore barnaamijkan hore ugu soo fadhiisan barnaamijkan waa barnaamij xasaasiya hadii aan guda galo sidoo kale waxaad booqan kartaan Instagram-ka meesha ku qoran tahay official si aad macluumaad walbo aad u baahatid amba aad isleedahay bulshada la wadaag aad u soo gudbisid lambarka kale WhatsApp-ka meesha ku qoran barnaamijkan horta waa jacayl dad maqashid waxa waaye dhigal aanad naqee barnaamijkan waa jacayl waxaan soo gudbi doonaa qisooyin muruga badan leh adiga laftirkaaga hadaad qiso haysid aad laadahay meel aad ku soo bandhigtid waan soo bandhigi doonaa waxaad ku soo hagaagi kartaa lambarka WhatsApp-ka ah meesha ku qoran iyo Instagram-kayga keenan official ku qoran tahay inta ku soo gudbin kartaa barnaamijkan waxaan la soo wadaagay wiil kamida daawadayaasheena kuwa ugu qiimaha badan soo asiga ii sheegay maalin daraato WhatsApp-ka igala soo xiriiray wuxuu soo weydiiyay barnaamijkan ii wada min soo gudbi karaa si kale u fahmay waa iska dhaaf lamaan hadin ka bacdi oo soo wacay ka bacdi arrintii iga dhaadhiciyay xataa wuxuu ii sheegay inuu ila kulmaayo oo iga sheekeenayo barnaamijka waan ka aqbalay waa u tagay barnaamijkii oo uu iga sheekeeyay qiso aad u xanuun badan aan u guda galo qisadaas waxay ku sameysay halka dhibaatooyin badan oo isku gaarsiiyay jacaylka marka israacsiis waxa waa mar kaliya ee adduunka uu kula wareega doono wuu israacsiiyay dhibaato saad oo kala kulmay marka qisadiisa aan guda galayna horta dhammaan ma idin wadan akhri karno barse waa inii soo koobayna qaab yar oo nuxur leh intay nuxur kale aan kaga soo gudbinaynaa waa u guda galaa aniga waxaan walaalkeen Umar Keenan saa hore kuugu sheegana hadaad qiso hayso oo aad meel ku soo bandhigta laadahay waa soo bandhigi doonaa anad ii soo gudbi doontaa WhatsApp-ka iyo meesha ay ku qoran tahay Instagram-ka ku soo gudbi doontaa aan u guda galo horta marka hore wuxuu yiri assalaamu calaykum waxaan salaamayaa horta daawadayaasha ku xiran xidigaha banaadir media waxaan kamid ahay dadka ku xiran xidigaha banaadir media waxaan rabaa inaan la wadaago qisadada jacaylka ah inuu wakiil ka dhigtay walaalkii Umar Keenan waata aad u maasniya waa u guda gala qisada marka hore waxaan isku baranay qayb kamida suuqyada ganacsiga magaalada Muqdisho maalmaha kamida maalinta waxay ahayd oo dhahay maalin aan aad isaga faraxsanaa horta maan filayno dhahay inaan qof la soo kulmaayo jacaylna hore oo man soo marno dhahay maan aqoon taa macnihiisa waa la yaab jiro dadka oo sheegay jacaylka saas waa rafaad waliye waa la yaab jiray suuqa soo aasto dhahay meesha waxaan ku kulnay kibir aad u qurux badan oo marka hore aan isku baranay xoogaa dagaal ana suuq ka soo baxay ayadoo laba gabar la socoto aan isku dhacno dhahay markaas ku dhacnay way aflagaadeysay waa is dagaalnay ka bacdi waa raali galiyay waa kala tagnay anoo dareenka ugu dhashay oo markaan wajigeeda arkay qalbigayga xoogaa dhaqaaq ka dareemay maalinta waa isweyno waa kala tagno dhahay markii aan isku dhacnay oo is dagaalnay waa iga tagtay ana waa ka tagay maalin kale aan waxaan ku kulno dhahay anoo BL saaran oo adna suuqa laftirkiisa soo laabtay way ila hadashay way dhaday wiilka reesha lama tiido waa is baranay lambar ka qortay idin waa iga qortay waa is xiriir jirnay xiriirkaas ka bacdi muddo bil ah waysaas isu xiriirnaayeen waxa dhahay aniga waa isceli waayo waxaan doonay inaan jacayl u bandhigto waa u bandhigtay oo maalina isbiimay anoo ka cabsanayo way iga aqbashay si fiican ii soo dhaweysay wuxuu dhahay gabadhu waxay dhiganaysaa jaamacad ana waxaan dhiganay iskuul dugsiga sare ah oo dhahay oo hal sano ay dhignaa inta badan wuxuu dhahay galbihi aan waa shaqay jiray oo meherad yar wax ku gudi jiray xoogaa iskuulka ana iska bedberi jiray oo iska bixin jiray qof isku filna ahaa inta jacaylka ka hor waa isku filnaa u dhahay marka yaana war ku sii daalinay ka bacdi isbarashay isu bandhigasho kadib waxay noqotay nafta waxa waaye qalbiga hal oo naqday waa la midoobay waa la isla socday waa la xiriirinayay waxay gaarto dhahay
jacaylkan inuu waalidkeeda gaaro ana waalidkay gaaro hor Soomaali markii loo eego waxaa jirta qabiil qabiilku waa wax ugu xun ee dhalinyarada markii jacaylka la yiraahdo kala baabi'iyo oo dhanka qabiilka qabiilkoodu ma ugu qanacsanaan u dhahay qabiilkayga horta ma isku geeyno dhahay laakiin qabiilkooda magaal isbaranay oo guriga ligii jiray isku fahamsaneen way xumeynayeen wajii xumay iyo muujinayeen waxa dhacday qabiilka bacdi wajii xumaysi ugu muujinayeen gabadhii ay asla soconday walaalaheedana isku dhacno oo ay dhibaato xataa i geystaan oo xataa dad igu dalbadaan ay jirdil i geystaan arinta gabadha xataa waa ka qariyo dhahay saa u socday gabadhii jacaylka xaggayga gaabisaan ka arko dhahay jaamacadii sidoo kale wuxuu dhahay qarashaadka aan ka shaqeynayo waa u diri jiray dhahay oo maalin bareega markii la gaaro waxa waaye lacag u tuuri jiray mar walbo wax taranto amba ay lacag u baahato waan sii jiray dhahay noloshaas markaysaas si ahaataba asaas lagu socdo wiilkii jirdil loo geysto walaalaheeda dhibaateeyaan ka bacdi waxa dhacday in gabadhii guriga ay joogto ayna dhahin banaanka uma soo bixi karo wuxuu maalmaha kamid aan soo baxay gabadhii guriga waa ma soo bixi kartaa lahay markay jaamacadda ka imaado banaanka looma ogoleen maalmaha kamid aan soo baxo dhahay waan wacay banaanka idoo ano taagan guriga banaankiisa daaqada ii soo saagtay aninkoo wada hadlayno yar walaalkeeda oo gadaasheeda ka imaaday xoogaa jirdilow ii geysay haddana wuu ii dacweeyey degmada la geeyey waa la xiray muddo 4 beri ah xirnaa ka bacdi waxaan awoodi waayay inaan gabadha u tago wicitaankeen laga qabanaynin oo jacaylka kale igu koobnaado gabadhii ma soo bixi karto ma is arki karno oo guriga lagu xiray jaamacadda markay ka imaado guriga kama soo baxdo waxaan sameey jiray saaxiibadeed aan markii dambe bartay waraaqadan ugu dhiibi jiray iyada waraaqada igu soo dhiibi jirtay si u socota arintaas muddo 3 bil ah waxa dhacday warqadeedii waa iikii wali soo keenay jiray ana u dhiibi jiray teeda way go'day teeda la soo hortay aan la u diri jiray gabadha saaxiibteeda waxay dhigi jirtay way soo bixi weysay way qor weysay siba la marmeeri jiray dhahay anina jacaylku waa ugu sii farabatay sidoo kale wiilku wuxuu tusay gacantiisa midiga inay ku qorneed xarfo kamid gabadha magaceeda marka wuxuu dhahay aan dhibaatadaasaan soo kulmay marka guriga iska joogjo dhahay waxaan qaban waayay iskuulkii waan ka haray shaqadiina waa ka haray orta rajo fiican oo lahaa marka hore iskuulkiisa hal sano oo dhanay halkii sano waa ka gabo dhahay meesha shaqadana waa ii dhamaaways waa wadi waayay jacaylkii guriga aan la joogo xasan ula joogay gabadha magaceeda gacanteeda ku qoro dhahay si aan qalbiga aan uga dugsado magaca gacanteeda ku qoran waa telefoon ma haysto aan kala hadal karo waa telefoonkeeda hadaan waco ma laga qabanayo wuxuu maalmaha kamida wiil asxaabteeda ay ugu dirqeen inaan beerta nabada soo aado dhahay waa soo baxay inoo ka diidana iska soo baxo dhahay marka beerta imaaday xogaa aan iska fadhiyo mar kaliya waxay isheeda qabatay gabadhii aan jeclaa oo gacanteeda magaceeda aan ku qoray aan dib kula qoray waa ay taa jeclaay oo aniga igu sheegtay inay guriga ka soo bixi karin walaalaheeda dhibaateynayaan asigina naftiisa xataa ku weey kara hadoo xataa soo aado wuxuu yiri beerta anagoo joogna asxaabteeda la sheekeysanay aan qalbiga xanuun ka dareemo dhan marka hore markaan dhinacayga magacsadana waxay isheedu qabatay iyada iyo 3 gabdhood iyo hal wiil oo meel wada fadhiya waa dareemi kartaa mo qof aad muddo raadinaysay waa muddo waa jacaylkeeda aad ku burburay oo xataa noloshaadii aad u gabtay nolosha shaqadaada aad u gabtay waxbarashadaada u gabtay mustaqbalka dhan oo dhumiyay markaan arko dhahay gabadhii waan soo istaagay aan soo istaagay gabadhii iyo wiilka isku soo hergabdhay kale way ka tageen markaan gabadhii agteeda soo istaagana koray soo fiirso dhahay seedaad way fiirsan aan waa fiiruday markaas wiilku xoray wiilkan yowya gaas si jaas waxay ku tiri ma garanayo laakiin wuxuu og yahay qof dhibaataysan wuxuu marka meesha sameeyay ugu dambeysay waan suuxay markaas isfaaligay ka bacdi soo naaxo marka talo wuxuu dhahay waxaan u baahanahay talo
waan quustoo dhahay ma awoodi inaan gabar jacayl u bandhigto waa burbura qalbigayga qalbi hadoo jaban ma la kabi karo waa sidii bir inkastoo birta la sii alxamo qalbi lama sii alxami karo marka waa wuxuu dhahay ka bacdi istaaran galay ka bacdi wuxuu dhahay waxaan sameeyaan la ahay qof aan aamini karo male niyadeydu way jabsan tahay marka tala ahaan maxaad ii soo jeedin lahaydeen adinka taladeyda waa taladiina marka adinka maxaad ku waani lahaydeen kulleeto shatan far ilaahay muslimiin haday mid xumaato mid kale xumaan karto marka adiga fikirkaaga comment ugu soo qor asigan daawadaasho ka mid yahay commentiga ayuu akhrisan doonaa oo fikir ka dhax qaadan doonaa marka waa maasantiin sidoo kale wixii fikir jacayl ku saabsan waxaad igu reebi kartaa Instagram-ka ama WhatsApp-ka meesha ku qoran aad u maasantiin intaan barnaamijkan mid la cayna aan kulmi doono sidaas nabadgelyo qalbigaaga ma disin naheda niyadaada ma didaysin naheda nuurkaaga ma disin naheda dasha ila deshin naheda siko baby siko digo so siko naheda siko gala baby siko digo so siko gala zoom me I wanna hit that